kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeena ugu doorka roon oo halkan aad ku daawan doontaan haddii eebe idmo ciidamada militariga Ethiopia oo soo bandhigay maxaabiis ay ku soo qabqabteen dagaalka ka socda duleedka Dizay TDF oo madaafiic ku garaacday magaalada Dizay iyo waliba nawaaxigeeda khasaare xoogan oo laga soo sheegayo duqeymihii shalay ka dhacay magaalada Maqale madaxweynaha galmudug Axmed Kaariye Qoorqoor oo digniin u diray culimada Ahlusunna wal Jamaaca iyo waliba qaar kamid ah siyaasiyiinta qaramada midoobay iyo Mareykanka ayaa waxa ay dhaleeceeyeen afgambigii ka dhacay dalka Suudaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo Yurub uga qayb galayo shir muhiim ah daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan aan idinku faahfaahin doono haddii eebe idmo ciidamada militariga Ethiopia ayaa waxa ay soo bandhigeen ciidamo fara badan kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ku soo qabqabteen dagaalkii maalmahani ka socday duleedka Dizay ciidamadani oo diriiska ciidamada TDF ka qabay ayaa waxa soo bandhigay ciidamada militariga Ethiopia kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ahaayeen ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah kuwaasi oo la soo khalday ciidamada militariga dalka Ethiopia ayaa inta badan looga baran inuu soo bandhigo maxaabiista ay ku soo qabteen dagaalka inta badan waxa maxaabiista soo bandhigi jiray ciidamada TDF-ta kuwaasi oo dowlatus ku sameyn jiray ama ku faani jiray inay soo qabteen ciidamada militariga Ethiopia kadibna ay hor keenaan TV-yada iyaga oo waliba halkaasi hadal ka jeedinayo inta badanna waxaan la aqoonsan ama aan la garan karin dadka ay ku soo qabteen dagaalada halka ay ku dambeeyaan balse ciidamada militariga Ethiopia ayaa iyaga laftoodu hadda waxa ay bilaabeen barabagandada ama dacaayada ah in ciidamada siyaasadda lagu soo qabtay ama dagaalka lagu soo qabtay in la hor keeno warbaahinta kadibna halkaasi lagu sheego inay yihiin ciidamadii hubaysnaa ee la soo qabqabtay balse inta badani arrimahani ayaan xaqiiqada dhabta ah jirto aan la garan karin iyadoo oo warbaahinta madaxa bannaan aan la ogoleen gudaha aaga Dizay iyo waliba goobaha ee dagaaladu ay ka socdaan inta badan wariyaasha halkaasi tago waxa loo ogol yahay oo kaliya inay hal dhinac oo kaliya ay ka waramaan ciidamada TDF-ta ayaa waxa ay bilaabeen habeennimadii xalay inay madaafiic ay ku garaacaan magaalada Dizay iyo waliba nawaaxigeeda duqeymahan amaba ay garaacida ay ku garaacayaan gantaalada ayaa waxa ay imaanaysaa iyada oo ciidamada militariga Ethiopia kuwada cirka ay madaafiic ay ku garaaceen amaba ay gantaalo ay ku dhufteen magaalada Maqala ee xarunta maamulka Tigreega madaafiicda ay ridayeen ciidamada TDF-ta ayaa inta badan waxa la sheegay inay ku dhacday buurta toose ee magaalada Dizay madaafiicda ayaa inta badan aan loo kala meeldaynin iyaga oo la iska ridayo loona jeedo in qofkii ku dhinta haddii shacab yahay haddii ciidan yahayba uu yahay mid ay wax uga goynayaan Ethiopia inta badan TDF-ta ayaa maalmahani waxa ay bilowday markii duqeymo laga geysto magaalada Maqale in iyaga laftooda ay ka argustaan magaalooyinka inta badan ay ku hareeraysan yihiin iyo waliba dadka shacabka ee ku sugan aaga iyaga ay joogaan waxaa la soo sheegayaa khasaare laxaad leh inuu ka dhashay madaafiicdan waaweyn ay ku garaacayeen magaalada Dizay inta badan waxa ay madaafiicda ay ku dhaceen goobo ka fog halka dadka rayidka ay joogaan inkasta oo madaafiicda qaarna ay gaarayeen goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka balse inta badan ciidamada dowladda Ethiopia ayaanan ka hadlin duqeymahan aan loo kala meeldayin ee ay geysanayso TDF-ta balse TDF-tu in badan ayay ku faantay in ay duqeymaha ay ka geysatay magaalooyinka waaweyn kuwaasi oo ay ku hareeraysan yihiin khasaare xoogan ayaa waxa laga soo sheegayaa inuu ka dhashay duqeymihii maalinimadii shalay ee ciidamada cirka militariga Ethiopia ay ka geysteen magaalada Maqale duqeymahani shalay ka dhacay magaalada Maqale ayaa waxa uu noqonayaa duqeymihii lixaad oo ka dhacay magaalada Maqale iyo waliba nawaaxigeeda inta badan ciidamada militariga Ethiopia ayaa waxa ay ku dhaleeceeyeen amaba ay sheegeen
in goobaha ay ku dhuftaan madaafiicda amaba ay duqeeyaan ay yihiin goobo muhiim u ah ciidamada TDF-ta amaba Tigreega, halkaasi oo inta badan ay u yihiin goobo ay ku keedsadaan hubka iyo weliba meel ay kusoo saaraan iyo weliba dhul warshado ay sheegeen inay yihiin kuwa u sameeya dariiskooda. balse inta badan TV-ga Tigreega ayaa waxaa laga sii deynayay khasaare xoogan oo dadka shacabka soo gaarayay, meydad iyo weliba dhaawac laga soo saarayay burburka meelihii la sheegay in uu ka dhacay duqeymihii shalay ay geysteen ciidamada cirka ee Ethiopia. TDF-ta ayaa waxa ay sheegeen in khasaare xoogan la soo gaarsiiyay shacabka ku nool magaalada Maqale, kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in ciidamada dawladda ee kuwa ciidamada cirka ee dawladda federaalka Ethiopia in ay duqeynayso dadka shacabka goobaha ay ku sugan yihiin sida isbitaalada, iskuulada iyo weliba danta guud, waa sida hadalka loo dhigay. Maalmadii shalay ayaa waxaa TV-ga Tigreega uu soo saarayay diyaaradaha geysanaya duqeymaha marka ay hawada ay soo galeen iyo marka ay duqeynayeen, intaba iyada oo laga dheehan karay in iyaga laftooda madaafiic ay ku jawaabayeen, inkasta oo madaafiicda ay ku ridayeen aysan gaarin halkaasi. haddii aynu aadno dhankaas iyo Soomaaliya, magaalada Guraceel maalmihii u dambeeyay waxaa ka socday dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo weliba kuwa galmudug oo isgarbinayo iyo kuwa ahlu sunna wal jamaa. dagaalka oo dhowr maalin qaatay ayaa ugu dambeyn waxaa halkaasi laga saaray ciidamada ahlu sunna wal jamaa. madaxweynaha galmudug Axmed Kaariye Qoorqoor oo xalay warbaahinta la hadlayay ayaa marka hore wuxuu ka tacsiyay dhibaatada soo gaartay shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi dhibaatada weyn oo ku soo gaadhay, intii dhimatayna naxariis eeba u weydiiyay, inta dhaawacana eeba uga baryay inay bogsadaan. balse waxa uu digniin u diray culimada hubeysan ee doonayo inay khalkhal ay geliyaan guud ahaan galmudug iyo weliba goobaha kale ee ku hareereysan. Axmed Kaariye Qoorqoor ayaa dhanka kale waxa isaga uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin doonayo amaba gadaal ka riixayo culimada ahlu sunna wal jamaa, kuwaasi oo ku doonayo inay ku gaaraan kursiga, waa sida hadalka uu dhigay. qaramada midoobay iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa labaduba si wada jir ah iyo midowga Yurub waxa ay u dhaleeceeyeen afgambigii ka dhacay dalka Suudaan, kaasi oo lagu sheegay inuu ahaa afgambi sharci darro ah. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu ugu baaqay militariga xilka hadda la wareegay waa inay sii daayaan wasaarihii dalkaasi Cabdalla Xamduug. militariga oo hadda uu hogaaminayo Cabdifataax al-Burhaani ayaa waxa ay ugu baaqeen in uu sii daayo siyaasiyiinta hadda u xiran siyaasadda uuna ugu horeeyo Cabdalla Xamduug. waxaa kale oo uu Biden u sheegay in dib loo soo celiyo xukuumadii rayidka ahayd ee ka jirtay dalka Suudaan. hadallo aad u weyn ayaa waxa ay ka dhacayaan dalka Suudaan, kuwaasi oo geystay